Somaliland oo ka hor timid go'aanka dalka looga saaray wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. Somaliland ayaa sheegtay inay ka xun tahay go'aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dalka uga saartay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay Somaliland ayaa lagu yiri dowladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay u cadeynaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo beesha caalamka intaba in ay ka xun tahay go'aanka Soomaaliya ay ka qaadatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane Haysom. Dowladda Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo tixgelinaysa iskaashiga iyo taageerida dhanka horumarka iyo bini'aadanimada ee ka dhaxaysa Somaliland iyo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay ku wargelinaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobay in go'aankaasi uusan quseyn Somaliland isla markaana ay dowladda Somaliland si buuxda ula shaqeyn doonto jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo laamaheeda kala duwan. dowladda Somaliland waxay ku bogaadinaysaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Haysom in mudadii uu jooga xafiiska uu dadaal xoog leh u galay nabadeynta Soomaaliya dhexdeeda iyo xal u raadinta khilaafka Somaliland iyo Soomaaliya. Ugu dambeyntii dowladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay aaminsan tahay in go'aanka ka dhanka ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka xeel dheer yahay waxa lagu sababeeyay isla markaana uu ka dhalan karo cawaaqib xumo mustaqbalka ah. Dowladda Soomaaliya ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay ku wargelisay in aan dalkan laga reebin isla markaana uusan ka shaqeyn doonin wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya oo ay dowladdu ku eedeysay inuu faragelinayo arrimaha gudaha iyo madax banaanida Soomaaliya.